Sanadkii 2003 waxaa la aasaasay shirkadda Tesla Motors. Waxaa aasaasay laba injineer oo la yiraahdo Martin iyo Mark Trabon. labadii 2003 Tesla Motors waxay noqotay mid ka mid ah fikirka sida ay u soo saari lahayd gaari ku shaqeynaya korontada, taas oo qof kasta uu rabo ahna mid isku halayn karo, sidoo kale aan deegaanka waxba u dhimayn. taas micnaheedu tahay in aanu khatar ku ahayn ama aanu ka qayb qaadanayn dikhowga hawada. 2004 ganacsade markaa ahaa madaxa shirkadda SpaceX Elon Musk uu ku maalgashtay lacag malaayiin ah oo ka mid ah lacagtii uu isagu lahaa. intaa kadib waxaa loo doortay inuu noqdo madaxa isla shirkaddan Tesla Motors. sanadkii 2016 Musk iyo Tesla waxay noqdeen qaar aan la hulin karin. taas micnaheedu waa inay heleen 4,000 oo dalab oo laga soo dalbanayo gaariga casriga ah ee ay farsameeyeen. Chargerka bayteriga waxaa lagu qiyaasaa in uu shaqeyn karo ilaa 200 oo mayl. 2007 Tesla waxay u dabaaldegtay sanad guuradii 5aad, taas oo soo bandhigtay in Elon Musk uu ku maalgashtay $70 milyan oo ah lacag isagu lahaa mar kale. isla waqtigaa waxay soo bandhigtay gaarigii labaad ee ay soo saarto, kaas oo qiimo ahaan ahaa $50,000 oo. wuxuu ahaa gaari raaxo oo ku shaqeynaya korontada. 2012 Tesla waxay sidoo kale soo saartay model kale oo ay u bixiyeen Model X. sidoo kale Tesla waxay bilowday goobo laga charger garaysto gawaarida gudaha dalka Mareykanka, gaar ahaan California, beddelka gas stationkii ama goobihii shidaalka. 2013 waxay ku sigatay inay kacdo. waxaa sidoo kale heshiis dhow la gashay shirkadda Google si ay uga iibsato shirkadda Tesla. intaa kadib horaantii sanadkii Tesla waxay soo bandhigtay faa'iidada ay ka heshay ilaa bilowgii kambaniga. intaa kadib Elon Musk waxa uu ka baxay heshiiskii Google. sanad kadib waxaa lagu arkay gawaaridii cilad, taas oo ah inuu bayteriga gaarigu iska gubto. 2014 Tesla waxay hoos u dhigtay iibsiga bayteriyada baabuurta qiimo ahaan. sidoo kale waxay dhisatay warshad u samaysa bayteriyada gawaarida meel ka baxsan Reno, Nevada ee dalka Mareykanka.